بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaleyga qiimaha badan waxaa fooda nagu soo haysa bishii barakeysaneed ee Ramadaan. waa marti qaali ee tahay oo haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo kasi inaan gaarno noo noqonaysa fursad aad iyo aad u qaali ah oo aan kaga faa'iideyso. qofka muslimka ah waxaa lagu yaqaanaa fursadaha iyo munaasabadaha mawaasimta cibaadooyinka iyo khayrka markay imaadaan inuu dhexda xirto oo markaas uu isku diyaariyo inuu uga faa'iideysto sida ugu sareysa si fursadaasi oo laga yaabo inaysan noo soo noqonin aan uga faa'iideysano inta ay nala joogto. Ramadaan dadka ku sugan waxaa loo qeybiyaa laba kooxood. koox Ramadaan ku guuleysatay ku liibaantay ka faa'iideysatay iyo koox ku khasaartay Ramadaan oo Ramadaan dhexdiisa khasaare adduun iyo mid aakhiraba helay. Ramadaan kooxda ku guuleysatay waa kooxdii xaqiijisay hadafkii Ramadaan loogu talagalay. hadafka soonka Ramadaan loogu talagalayna Allah subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay. Allah wuxuu yiri yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba calaykumus siyaamu kamaa kutiba calal ladhiina min qablikum lacallakum tattaquun. Ilaahay wuxuu soonka idinkugu waajib yeelay si aad Ilaahay uga cabsataan. qofkii marka taqwa iyo alla ka cabsi xaqiijiya alla ka cabsiguna waa in qalbigaada aad ka samaysato wax kaa celiya macsiyada iyo dunuubta. waa in adiga iyo cadaabka iyo ciqaabta iyo carada Allah subxaanahu wa tacaala aad ka samaysato gaashaan kaasoo ah Ilaahay inaad adeecdo oo Ilaahay aad ka cabsato. alla ka cabsigu waa inaad samayso wixii Ilaahay ku amray oo aad ka harto wixii Ilaahay ka reebay. sidaa darteed dadka Ramadaan ku guuleystay waa dadka xaqiijiyay hadafkii Ramadaan laga lahaa oo ahaa in Allah subxaanahu wa tacaala laga cabsado. sidoo kale dadka Ramadaan ku faa'iiday ee ku liibaanay waa dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bishaan dhexdeeda dambigoodii ku dhaafay. nabigeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam raqimu anfu man adraka Ramadaan walam yughfar lah. waxaa sankiisu booroobay yacni khasaaray qof bisha Ramadaan soo gaaray haddana aan dambigiisa loo dhaafin. xabiibkeenana wuxuu noo sheegay 3 waxyaabood oo Allah subxaanahu wa tacaala uu dambigeena ku dhaafayo bisha Ramadaan dhexdeeda. nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam man saama Ramadaan iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbi. qofkii Ramadaan sooma asagoo rumaysan isla markaana Ilaahay ajar ka xisaabsanaya oo Ilaahay ajar ka malaysanaya dambigiisii hore waa loo dhaafaa. sidoo kale wuxuu noo sheegay nabiga arin labaad oo dambigeena Ramadaan Ilaahay uu dambigeena ku dhaafo. arintaasna waxaa weeyaan wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wassalaam man qaama Ramadaan iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbi. qofkii Ramadaan istaaga yacni Allah subxaanahu wa tacaala u tukada ee qiyaamul layl la imaada asagoo Ilaahay agtiisa asagoo Ilaahay rumaysan isla markaana Ilaahay ka ajar malaysanaya oo aan u tukanaynin dadkoo dhan ayaa salaada aad ama heblaaya taraawiix soo aad ama wallahi aabaha baa kugu qasbay adigana aad aan u aadaynin laakiin Ilaahay uu rumaysan yahay iyo malaysi uu ajar ka malaysanaya daraadeed u tukaday dambigiisa kii hore ayaa loo dhaafaa ayuu yiri sallallahu calayhi wasallam. arinta saddexaad ee nabigeena uu noo sheegay wuxuu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam man qaama laylatal qadri iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbi. si gaar ahaaneed habeenka qofkii raadiya isla markaana salaad u istaaga oo qiyaam la imaada asagoo Ilaahay rumaysan Ilaahayna ka ajar malaysanaya dambigiisa kii hore oo dhan ayaa loo dhaafaa. nabigeena calayhi salaatu wassalaam saa darteed wuxuu noo sheegay in bishaan Ramadaan ay tahay bil dambi dhaaf sababihii dambigan loogu dhaafi lahaana inaan ku dadaalno. saa daraadeed dadka bisha Ramadaan ku guuleystay waa dadka marka koowaad xaqiijiyay hadafkii Ramadaan laga lahaa oo ahaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka cabsadaan iyo in Ilaahay bishaan dhexdeeda uu ugu dambi dhaafay. sidee ku ogaanaysaa in Ilaahay uu dambigaada ku dhaafay? adiga waxaa laga rabaa inaad la timaado waxyaabihii lagugu sheegay in Ilaahay uu dambigaada ku dhaafay oo kadibna Allah subxaanahu wa tacaala aad ka rajayso inuu dambigaada ku dhaafo oo aad ku dadaasho waxyaabihii la yiri dambigaada ayaa lagu dhaafayaa. geesta kale kasoo horjeedkeeda dadka guuleystay ee Ramadaan ku liibaanay waxaa kasoo horjeeda dad khasaaray bisha Ramadaan. khasaaradooda waa ay kala daran tahay waana ay kala darajo sareysaa. kuwa ugu khasaaraha daran bisha Ramadaan ee ah dadka ugu khasaaraha xun ee Ramadaan ku khasaaray
waa qofkii bisha ramadaan dhexdeeda dembiyada iyo macsiyada sii siyaadsaday. bishaan sida ajaradeeda loo labalaabo ayaa qofka muslimka laga rabaa inuu ka dheeraado wax kastoo dembi iyo macsiyo iyo khalad ah. dadka khasaaray ee ugu khasaaraha daran ee ugu khasaaraha adag bisha ramadaan dhexdeeda waa dadka dunuub iyo macaasi iyo dembi siyaadsaday. dembiga waaweyn iyo dunuubta yaryar. dunuubta waaweyn inaad ummadii dhacdo ama dhiigooda daadiso ama ummadii aad wax u dhibto, inaad macsiyooyinkii waaweynaa ee nabigeena uu noo sheegay qur-aankeena iyo axaadiista nabigeena ka buuxa ee qofka mu'minka lagu amray inuu iska ilaaliyo qofkii inuu ku dhaco. qofkaas ayaa bisha ramadaan ugu khasaaro daran. dadka darajo ahaan kusoo xiga waxaa waaye kuwo intaan ramadaan la soo gaarin khaladaad iyo dunuub iyo macsiyo ku jiray, iska sii watay dembiyadii ay ku jireen oo aan ka faa'iideysanin fursadda bisha ramadaan, maadaama bisha ramadaan ay tahay bil isbedel, fursad qofku isku bedelo, fursad qofku dunuubtiisa uu ku yareeyo, fursad macaasida qofku iskaga dhaafo, fursad uu qofku ku toobad keeno, fursad uu qofku ilaahay ugu dhawaado. qofkii aan fursadda ka faa'iideysan ee taqsiirkiis iyo dunuubta awal soo walaaqan jiray iska sii dhex walaaqda bisha ramadaan dhexdeeda, kuwaasna waa kuwa ugu khasaaraha badan, waa kuwa ku xiga darajo ahaan xagga khasaaraha kuwii hore ee ahaa kuwo dembi siyaadsaday oo ilaahay soonkuu sooma dhahay diiday, salaadii tukada la yiri diiday, dunuubta waaweyn iyo macaasidoo dhan ku dhacay. waxaa ku xiga kuwa dembiye ayagoo ku jiray iska sii watay oo aan ka toobad keenin oo aan ka faa'iideysanin fursaddii bisha ramadaan ee ay isku bedeli lahaayeen. sidoo kale dadka aanan bishaan ku guuleysanin waxaa ka mid ah qofkii ramadaan ay la tahay caado bulshadeed iyo caado dhaqameed u sooma ummadoo dhan ayaa soonta, ceeb waaye, u tukada, taraawiixda u aada, ummadoo dhan ayaa u aada. micno kale oo ramadaan uu la leeyahay aysan jirin. ramadaan qalbigiisu aysan boos ku lahayn oo markay dadka afuraanna iska afura, markay saxuurtaanna iska saxuurta, iska hurda, waqtigiisa inta badan hurdo ku qaata. ramadaan siduu iskaga dili lahaa ama uu waqtigiisa usoo gaabin lahaa ku dadaala. qofkaasi asagana waa qof ramadaan aan ku guuleysanin, ramadaanna aan ku liibaanin, bal ramadaan ku khasaaray. sababta maxaa waaye ilaahay subxaanahu watacaala inaad cunto iyo cabitaan ka tagto micno uma sameynayso, laakiin waxaa micno u sameynaysaa in ramadaan iyo soonka waxyaabihii loo jideeyey ee allah subxaanahu watacaala in addoonnimadiisa la qira ah, in ilaahay ay kuu dhaweyso ah, in qalbigaada allah subxaanahu watacaala muraaqabadiisa ay ku badata ah lagaa waayey. saa daraadeed qofka aan ramadaan ay la tahay caado muslimiintu ay leeyihiin oo la iska soomo, la iska salaado, kadibna la iska ciido oo micno intaa ka dheer aysan u sameyneynin, qofkaasi asagana ma aha qof ramadaan sidii la rabay uga faa'iideystay. sidoo kale waxaa jira qof ramadaan maalmuhu bilowga yahay xamaasad ku bilaaba cibaadooyinka, quraan akhriska, masaajida oo la buuxiyo, laakiin nasiib daro ramadaan markuu dhex gaaro sidiisii hore iskaga soo noqda oo ka caajisa. qofkaasina ramadaan sidii la rabay ugama faa'iideysanin. waa 30 maalmood oo yar, waa saacado kooban oo naga tegi doonta, waa marti noo timid oo naga dhaqaaqi doonta. laga yaabo sanad soo socda inaadan gaarin, bal ramadaankan gudihiisa ayaa laga yaabaa inaad dhammaystiran weyso. saa daraadeed qofka muslimka ah waxaa la rabaa fursadaasi inuusan ka caajisin ama uusan ka weysanin. u fiirso masaajida habeenaha ugu horeeya taraawiixda way buuxaan, laakiin habeenba habeenka ka dambeysa way soo yaraanayaan. sababta maxaa waaye dadku marka hore ramadaan waxay ku bilaabayaan si xamaasad leh, laakiin macal asafi shadiidi xoogaa markay socoto qofkii wuu caajisayaa, wuuna wehsanayaa, kadibna sidiisii hore ayuu iskaga soo noqonayaa. qofka kale ee ramadaan aan ka faa'iideysanin sidii loogu talagalayna aan uga faa'iideysanin ee ku guuleysanin waxaa waaye qofka waxyaabihii qiimaha lahaa ee ajarka lahaa ee fadliga lahaa ka hormariya waxyaabo ka qiimo iyo darajo hooseysa. maxaan arrinkaa u leeyahay? ramadaan waxaa qiimo ku fadhiya waqtigaada sida aad u qiimeynayso, sida aad u maareynayso howlahaada, sida aad u kala horumarinayso. ramadaan waxaa lagaa rabaa prioritiska ama awlawiyaadka aad leedahay inaad kala hormariso oo waxyaabaha waaweyn ee qiimaha leh ee fadliga leh inaad ku bixiso. gabadhii ramadaan oo dhan jikada ku dhamaysay iyadoo ay muhiim tahay in gabadhu afurka diyaariso, saxuurka diyaariso, ilaahay agtiisana biidin illaahi ay ajar uga helayso, haddana in waqtigeeda oo dhan ay cunto ku dhamayso.
qofkaasi ma ahan qof ramadaan sidii loogu talagalay uga faa'iidaystay. daqiiqad kasta oo bisha ramadaan ka mid ah xaqiiqatan micno ayay ku fadhidaa. nabigeenuna sida uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, allah wuxuu xadiisul qudsi ku leeyahay assawmu lii wa ana ajzi bihi, soonka aniga ayaa iska leh, aniga ayaana ka abaalmarinaya. saa daraadeed dadka ramadaan waxay u qaybsameen labadaas qaybood. waxaa muhiim ah inaan ku dadaalno inaan noqono kuwa guuleysta oo ku liibaana oo ka faa'iideysta bishaan qiimaha badan, ee aanan noqonin kuwa ku khasaaray ama ramadaan aan uga faa'iideysanin sidii loogu talagalay. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha badan, meel kastoo aad adduunka joogtaan. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.